أملاه المصطفى في علوم فقه الله شيخنا هو يوسف الغلا بجوار المصطفى مع رؤيات وجه الله sheekh yuusuf sheekh ibraahim fiqi xasan fiqi maxamuud fiqi maxamed sheekh yuusuf direed waxaa la sheegaa inuu dhashay kii ama kii wuxuuna ku dhashay gobollada dhexe ee soomaaliya wuxuuna yaraantiisii la kulmay dhibaatooyin badan sida daraawiishtii iyo leentii badneed oo ay ka geysatay dhulkaas laakiin wuxuu ka soo jeeday qoys cilmiyeed sida ka muuqata magacyada waalidiintiisa sheekh yuusuf wuxuu la kulmay tarbiye aad u wanaagsan oo uu aabbihiis iyo hooyadiis ka helay hooyadiis ayaa iyaduna ka soo jeeday qoysdiimeed aad u wanaagsan waa qoyska loo yaqaan reer dhalow oo ka mid a qabaa'ilka dega dhuusamareeb aabbihiis wuxuu ahaa reer baadiye wuxuuse ahaa nin baadiyaha xoolo fiican ku leh ilmo badanna u joogaan sheekh yuusuf intuu yaraa ayuu qur'aanka xifdiyey waxaa soo baray qur'aanka kariimka ah aabbihiis sheekh ibraahim markuu bartay qur'aanka wuu xereystay oo inuu kitaabta akhrista ayuu bilaabay shiiqii uu la kulmay ayaa himadiisa iyo dadaalkiisii u begay markaasu wuxuu u geeyey sheekh cali samatar oo asaga ku caan ahaa aqoonta shareecada islaamka iyo kacamalkeedaba sheekh yuusuf asagoo gaarin 20 jir ayuu noqday caalim aad u yaqaan diinta islaamka daraasayn karana funuunta kala duwan ee shareecada islaamka sheekh cali samatar ayaa markaas u idmay inuu daraaseeyo diinta islaamka asagoona aad u ammaanay oo u aqoonsaday caalim islaamiya asagoona siiya dariiqada qaadiriya oo u sii fasaxay inuu baxsho sheekh yuusuf wuxuu bilaabay akhrinta diinta islaamka asagoo yar wuxuu salli ka dhigtay gobollada galgaduud siiba dhuusamareeb iyo agaarkeeda sheekh yuusuf wuxuu aas-aasay madarasadii raqayda oo loo yaqaan hadda jaamacadu raqay waxaa meelo kala duwan uga imaan jira xer nuuc walba leh kuwa bilow ah kuwa aqoon sare leh iyo kuwa meel dhexaad ah waxaa gaar ahaan loogu soo qasi jiray sheekh yuusuf fiqiga shaaficiga iyo tasawufka culmo badan ayaana u soo doonatay funuuntaas ama qaarkood culmadii soo doonatay funuuntaas oo qaarkood ahaa culmo aad u aqoon badan sheekh yuusuf wuxuu kaga faa'iidaystay si weyn oo ah inuu nin walba fannigu yaqaan uu ku yiraa daraasay taasoo sababtay in muddo kooban ay arday badan oo fanni kasta taqaana soo baxaan sheekh yuusuf allaa u naxariista wuxuu ku geeriyooday 16 bisha 1980 isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho kaasoo qalin loogu sameeyey kelida uu geeriyooday isbitaalka waxaana lagu aasay degmada huurshe ee gobolka galgaduud oo aabbihiis ku aasnaa saadaam cabdulle siyaad hoyga diinta t v magaalada وويس المرشد والصوفي ولي الله وبزايل المعروف من أهل شرب الله وعرفانا كاملا وعناية لله